hogaanka xuquuqul insaanka heer qaran ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani oo maanta wareysi siinaya telefishinka Ariel ayaa dhaliilo culus u soo jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland wuxuuna sheegay hadalkii maalintii shalay ka soo yeedhay madaxweynaha Somaliland inuu sii kala fogeynayo beelihii walaalaha ee diriirta coladeed ku dhex mareysay deegaanka Ceelafweyn iyo deegaanada hoos yimaada sidoo kale waxa uu hogaanku sheegay in madaxweynaha Somaliland uu go'aan ka gaadho sidii ay xaaladda Ceelafweyn iyo deegaanada hoos yimaada gobolka Sanaagba ay ugu dhamayn lahaa wada hadal iyo isafgarad si ay gobolka Sanaag ugu soo noqdaan nabadgelyadiisii hore gobolka Togdheer ruuxaantii waxaan doonaynaa dhowr qodob oo ku saabsan arintan colaadahan soo noqnoqonaya ka jira dalka iyo hadaladii u dambeeyay khudbadii u dambeeyay madaxweynuhu ka yiri ruuxaantii madaxweynaha waxa ka muuqatay mas'uuliyad darro oo tilmaamaysa ay ahayd dalkan haday askari tahay iyo haday shakhsi tahay ku dhex nool geeridiisa iyo noloshiisa hortaysa ka mas'uula madaxweynuhu taade muu muujin kaliya wuxuu ka dhidhiyo kaliya askar la laayay waxay ahayd inuu hore uga dhidhiyo dadkii shacabka ee islaynayay waxay ahayd intuu Hargeysa ka yimaado inuu yimaado meesha colaadu ka socdaan uu ka dibna eego cid kasta waxay tabanayso sidoo xalliyo waxa kaloo aad iyo aad yana la yaab leh gobolkan ama Ceergaababa odayaal dhaqameed fara badan baa ayaa tagay sidoo kale ciidamadii qaranka oo dhan way tageen jananadii ciidanka tagay ruuxaantii meel ma wada gasho odayn iyo ciidamayni waxay ahayd in ama arrimaha lagu xaliyo odaytinimo oo madaxweynuhuna ku matalo oday u dhaxeeya qaranka oo umaamada u qaato ciidankana uu dib u soo saaro qof cid kasta haday tahay jabhadaha ciidanka dhexdiisa ka dilaacay iyo haday tahay beelahan isayaaba inuu dhex fadhiisto oo cid kastaba weydiiyo waxay tabanayso cid kastaba sidii ay raali ku tahay nabadna ay ku helayso dadkuna dhiigiisu kala badbaadayo ayay ahayd in uu sameeyo ma aha inuu yiraahdo beel ka baqanaysa kadibna ciidanka qaranka leynaysa taasu hadal mas'uuliyadeed maaha oo hadal madaxweyne maaha baan leenahay anagu aad iyo aad baan u cambaaranaynaa horta madaxweynuhu saa qaranka oo dhan ka mas'uula hadduu cid xasuuqayo hadduu cid noolaynayo labadaba awoodeedii buu leeyahay ilaahayna uu kala xisaabtamayo horta laakiin arrintu waxay ku wacan tahay in wax kasta lagu xalliyo odaytinimo iyo xal lagu xalliyo sida ugu suurta gashan haddii cid gaar ah madaxweynuhu cadaadis saaro waxaan filayaa dalku inaanu suurtagal noqonin si jiritaankiisu way dawladdiisa siyaad baraba waxaan oran jirnay inaga si gaar ah inoo eegi jirtay oo wax gaar ah taban jirnay kadibna waynay ka dareernay marka madaxweynaha waxaan ugu baaqaynaa in uu si hoos ahaan wax u eego in aanu inta badan ku degdegin in ciidamo iyo caga jugleyn iyo qori caaradii in wax ku xalliyo laakiin ku xalliyo aqal saliima iyo wada hadal iyo ummadda inuu si soo dhaweeyo bulshadu waxay isku haystay ka dhaxaystaa wax badan maaha way isfahan waaw wuxuu baan isfahansiin karaa madaxweynaha waxaan leenahay inta Ceergaaba timaadid iyo Ceelafweyn dadka dhex fadhiiso haday jabhada tahay u tag adigu inta odayaal ka haysatid waxay ka cabanayaan weydii haday beelahan islaynaya tahay dhex fadhiiso waxay tabanayaan iyo xal marintooda weydii halka inuu ka galay arrinku ma aha inuu madaxweynuhu intuu soo fadhiisto media oo halka uga soo hanjabo dadkuna waxaan cadha ahayn ka sii qaadi maayaan laakiin markuu madaxii u sareeyay dalka dhex yimaado wax kasta way hagaageen Shucayb Xasan Cismaan Shucayb Kingish telefishinka caalamiga ah Sahan magaalada Burco waa Maxamed Ali Ahmed Maxamed Kaabe telefishinka caalamiga ah Ariel magaalada Burco